بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما وحن سلام يا برشاد Somaliland قضية دبدبة عن جعلنا وحكي لعضو لو شيء أو عصب قواصة أمامك يقرأ هذا ينقصه قربي يخلاف حسب الكلمية. نبتكلم هو شيء قاليا ومدر غير Somaliland وحوصل مرة الطريق ده waxaynu madahan ku difaacayaan inagoo isku duwan waxaynu fiijigo u lahayn cadow meel uga yimaada waxaas ayaa daraa in kuwii amaanka u diray iyo kuwii dabca lahaa ee dalkan inay xukuumad doonayeen la soo sheegayo waxyaabo amaanka ku lidda iyo inay isku dayaan inay qarankan kala galiyaan waxaan leeyahay qarankan aniga mas'uuliyadiisa ku wali saaran tahay umana dul qaadanayo mana aqbalaya cidna gorgorta kala gali maayo amaanka iyo xasiloonida dalka waxaan ku qaban doonaa gacan adag waxa lala tigsan doonaa sharciga aniga iyo shacbiguna ma nihin kuwii shaani lagu baqdari lahaa khilaafka kulmiye waxa maalmahan soo baxay khilaaf xisbiga kulmiye dhexdiisa ah waxaana ka xumahay inaan filay waqtigan waxaan u haystay in aan kala raabnay intii isaysay oo weliba guddi turxaan bixireed u saaray taasoo suurto gelisay in shirweynihii loo soo gabagabeeyo si qurux badan waxaana halkaa lagu doortay shir guddoonkii maamulayay shirka hoggaankii xisbiga iyadoo oo la isla qaatay in golay dhexe iyo fulintii lagu soo ururiyay shir guddoonka shirka waxaa lagu soo ururiyay waana soo saareen haddiiba uu soo baxo isfahmiwaa waxaa in si hoose loo dhammeeyo hoggaanka xisbiguna wada fadhiisto kaadirka xisbiga loo yeedho xildhibaanada loola tago haddii taasi dhammaan weydana xisbigu sharci buu leeyahay dalkuna sharci buu leeyahay buuq iyo qayladana looma baahnayo arrinta musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga kulmiye ma jirto ballan noo dhaxeeyay aniga iyo musabixi hawa yaraatee waxaa jirtay oo golaha dhexe soo saaray in aan guddoomiyaha ku wareejiyo marka aan ku guuraysto tartanka doorashooyinka madaxweynaha waxaana ku wareejiyey bil gudaheed waxaa xisbigu ii doortay musharaxa madaxweynaha waanan ku guuraystay sharciguna wuxuu isiiyey 2 jeer waana sharaxanahay diyaarna u ah cid kasta oo ila tartanta waxaan jirtay dabeecadda nidaamka dimuqraadiga in la tartamo balse ma dhacdo xisbi xaakim guuraysta oo xisbigii lala tartama aniguse waxba kama qabo odayaasha guurtida waxaan waad ku mahadsan tihiin dadaalkii qiimo weyna waan u hayaa xaasha ma diidanin mana diidi karo waxaan ahay ninkii 8 cod kaga tegay duco qaado balse arrintan waxay u baahan tahay in xisbiga gudihiisa iyo sharcigiisa lagu